حضرنا waxaan ugu qoran libaan oo dhinaca midiga fadhiya iyo xabda oo dhinaca midiga fadhida ciwaankeeduna sida uu qornaa rasmiga waxa weeyaan qoraalka af Soomaaliga iyo baahida turjumida falanqeyn marka waxaanu u qaybinaynaa laba qaybood oo mid hore aan isku dayi doono inuu ku qiimeeyno afkeena iyo qoraalkeena waxa ku qoran afkeena afka iyo aqoonta ku qoran iyo buugta soo baxda af Soomaaliga ku soo baxda aqoonta xambaarsan tahay jaalidka wax ka qorto sida afka loo horumarin karo mushkilada ka jira mataqaana qoraalka waxa si guud fikradaas sidaan hore u sheegayna maaha cashir waynu wadaagi doonaa markaynu ka dhamaano qaybta koowaad qaybta labaad waxaan ku eegi doonaa turjumida ama haltirinta oo si guud aan uga bilaabi doono turjumadu waxay tahay iyo baahida loo qabo iyo taariikhda ay leedahay dunida galbeed iyo caalamka islaamka masala wax loo kala turjumo waxaa kaloo eegi doonaa kaljarada ama dhaqanada kala awoodda badan leh ama kala wax soo saarka badan leh sida waxu kala turjumaan waxaa kaloo eegi doonaa turjumaada shaakilka la socda marka wax la turjumayo waxa mataqaana xambaarka ama waxa xambaarsan yahay qoraalka la soo turjumayo dhaqan ahaan iyo mataqaana fikir ahaanba waxyaabaha caynkaas ayaynu qaybta labaad ku eegi doonaa waxaan ka horeyn doonaa xabdo cigaal oo qaybta Soomaaliga iyo mataqaana inoogu qoran kadib markaan ka dhamaano waxaan ku xigi doonaa libaan markaan ka dhamaano su'aalaha iyo waxaan ugu ku celinayo iyo waxa ay ku daraysaa intaas aynu wadaagi doonaa ku soo dhawaad bismillah alhamdulillah wassalaamu ala rasulillah qabanqaabiyaasha barnaamijka aad baan ugu mahadnaqaynaa madasha quruxda badan ee isku keen noo soo yegleeleen waxaan ka hadli doonaa qoraalka afka Soomaaliga qoraalka afka Soomaaliga marka la leeyahay waa afka Soomaaliga waxa la qoray muddo aad u kooban ka hor hadda 45 sanadood uu jiraa marka la barbar dhigo ummadda Soomaalida intay jirto aad uu da'yar yahay 45 sanadood waxa ka horeeyay 7 sano loogu jiray dadaal sidii afka loo qori lahaa aqoonyahano badan oo ajaanib iyo Soomaaliba laba aad u dadaalay inay afka qoraan afka markii la qorayay baahi baa keentay ama mararka qaar waxa wada yiraahdaa afka in la barto laftiisa waa lagu hadlaba baahi baa keentay oo su'aalaha jira afka ma wax lagu dhashay mise waa wax baahida keenta oo ay sababtay inay dadku bartaan tusaale ahaan diinta markii cidii ugu horeysay ay timid ma af bay ku hadleen mise si ay u xiriiraan ay u baahdeen inay af ku hadlaan waxaan u badan tahay in si ay u xiriiraan ay keentay inay af bartaan oo imika tusaale ahaan 200 sanadood ka hor awoobi afkii ku hadlayay waxa ka ballaaran afkan aan ku hadlayo waayo baahidan u qabo inaan wax badan ka hadlo ayaa keenaysa inaan wax badan barto marka qaar waxa la yiraahdaa afku wuxuu ka kooban yahay erey saleedyo iyo erey dhaqameedyo erey saleedyadu waxa weeyaan ereyada deegaanka loogu yimaado xubnaha jirka oo kale tirada waxyaabaha noocaas oo kale afafku ma kala amaaneystaan haddii aanay ahay laba af oo walaal ah tusaale ahaan Soomaalida iyo Oromada oo kale tiradooda markaad eegto aad bay iskugu dhowdahay oo lama waxyaabaha soo dhan aad bay uga midaysan yihiin afku waxa weeyaan waa nacdi wax la isku gudbiyo xog si ay ummaddu isku fahanto afku waa hay afku soo kale waa dhaqan iyo aqooneed ee bulshada afku mararka qaar waxa weeyaan qalbka lagu fukaro macnaheedu gaariga maxariso wuxuu oran jiray inta ereyada taqaano baa ka fikiri kartaa haddii diyaaradda aanad erey ahaan u aqoonin waxay tahay kama fikiri kartid tusaale ahaan ilmaha yar markuu afka baranayo adma waaweyn hareerihiisa ka dhacaya isaga saameynba kuma yeeshaan waayo ereyu yaqaana aqoon afku waa qalab lagu cabiro dareenka tusaale ahaan ilmuhu marka uu yar yahay waxaad arkaysaa inuu wax uu diidan yahay ama uu doonayo inuu ooyo ku cabiro waayo ma haysto ereyo u xambaara waxa uu dareemayo afku mararka qaar wuxuu saameeyaa qaab fikirka qofka tusaale ahaan oo kale waxyaaba soo qaadan kara inta qofka reer galbeedka markuu sani day leeyahay isagu waxa uu la socota farxad laakiin qofka dhulbaraha ku nool dee maalinta cadceed isagu waxa uu tahay Soomaaliyeed ayuu tahay wax jira hees
waxay tiraa naf baxda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado gadaal uma soo noqdo yacnii roobka galbeed ma aha markuu meel kala joogo inaanu dib u soo noqon laakiin deegaankaa la joogo ayaa waxay caddaynaysaa waa faham guud weeyaan waa faham guud oo dadku isla wada fahmayaan roobka daruurta hadday dhinaca galbeed martay inaan dib u soo noqon laakiin meel walba sidaa kama aha haddaynu soo noqonaa afka markii la qoray 1927 lama qorin laakiin la hirgeliyey fara badan baa yaalay xilligaa nin barashara la yidhaahdo afartan soo jeediyey 1927 ayaa la hirgeliyey afka xilligaa 27 ilaa 77 shantaa sano kobac aad u fiican buu sameeyey oo ololaa la qaaday dadkii miyada ku noolaa afkii in la aqoomeeyo oo wax lagu bartay ilaa jaamacado waxay ahayd dadaal aad u badan waqti yaroo intaa leegoo kooban in lagu hamiyey in jaamacada lagu dhinto ma sax bay ahayd ma khalad bay ahayd waa taas waa dood kale ama dee khaladaadkii la sameeyey haddaba waxaan weydiin karnaa 45 sannadood kadib afku baahidii loo qabay maynoo daboolay si markaan loo eego waxaan odhan karnaa afka inaynu ku xidhiidhno oo uu inoo fudaydiyey wax badan buu inoo fudaydiyey laakiin inaynu aqoon ku kaydinno ama aqoon ku gudbinno ama aynu aqoon kula soo wareegno weli waa wax maqan weeyaan waxyaabo badan baana sababaya oo dowladdii dee burburtay waxyaabo badan bay nagala burburtay hay-adihii dowliga ahaa ilaalin lahaa afafka soo gelaya shisheeye isla markaana kobcin lahaa oo markasta oo la horumaro teknolojiyadda horumar samayso aqoonta horumar samayso afku inuu kobcaa loo baahdaa waxyaabahan leeyahay dib u dhaca ama uu kobci waayo afka waxaa ka mid ah shakhsiyaadka ku foogan afku uma abaabulla inta la isku yimaado dadaalka shakhsiyeedna mar walba arrinsan culus way adag tahay inuu mideeyo bini aadamku aslanba waxa weeyaan waa selfish oo isagu wuxuu jecel yahay wuxuu isagu soo jeedinayo intiisa la qaato oo haddii aan la midayno dadka noocaasa aan la ururin way adkaanaysaa in wax laga gaadho qofba dhinac buu loo ordayaa waxyaabaa diyaddu leegi doona caqabadaha hor yaalla afka in wax lagu qoro aqoon weliba lagu qoro talan dadkeena wax bartaa maxay uga maagaan afka inay wax ku qoraan iyagoo af soomaaligoodu weliba fiican yahay markay ku hadlayaan caqabadaha ugu waaweyne yaalla waxaa ka mid ah midayn la-aanta afka taalahaan adduunyadoo dhan lahjado way jiraan laakiin haddana afka markay qoris noqoto laguma marmo xarafkan masana uu qormaya masana uu qormaya ari bud tallaabo tilaabo nacti qofku suu doono uma qorayo sibaa jirta la isla qaatay la hirgeliyey aan qofku dhaafi karin marka qaar computerizing baaba laga dhigaayo isagaaba computerku kuu sixi doona kuu sixi karaya waxaa ka mid ah xasilooni darrada afka tusaalehaan ereyada la sameeyo ama xeer beegti madax bannaani sidee loo qoraya iyo mareen maxariijin baa loo dhexaysiinayaa miyaa la isku dhejinayaa aslana marka wax la bilaabo la isticmaalkiisa waxaa kasoo baxa galdaloolooyin markaasaa haddana dib la iskaga imaada imka maalintii la qoray kadib dib looguma noqonin afkii oo waxay galdaloolooyinkan say kusoo baxayaan 2012 shirkii afarta guuladii af soomaaliya jabuuti lagu qabtay ayaa qodobkaa lagaga hadlay laba erey marka la isku keeno sidee loo qorayaa markii hore waxay go'aansadeen in la isku dhajiyo markii la isku dhajiyo waxaa kasoo baxday in tusaale ahaan hal abuurka oo kale markuu maansoonayo laba ereyoo la isku dhajiyey ayuu ka dambe xarf raaciisu ku socdaa deetana delqaaf baa yimid markii la isku dhajiyey xariijin baa layidhi markaa loo dhexaysiiyo laakiin haddana lama shaacin oo weli arrinkaa la islama qaada imika mushkiladda kale jirta waxa weeyaan afku ereyada isku dhigidda ah laakiin hadalka un lagu kala garanayo ka awr markuu jamac yahay iyo markuu keli yahay maxaa lagu kala uu qoraal yahay masaf dameer waxyaaba la aaminsan waxaa ka mid ah afku inuu qabyo badani ay ku jirto oo ereyada laba laamo oo kale waa toddoba xaraf baa laba laama laakiin marka la adeegsigiisa la eegayo ereyintaa ka badan imika dhacda oo kale laba xaraf baa loo qaatay ninkii ibraahim hawd daylaabaa wuxuu aaminsan isagu labadaa xaraf in la qaato lafteeda baahi keenaysay may jirin oo da-yaha oo dhaca marka la qaato maxaa fii baa inoo banaanayd ama sed oo kale waxyaabayna haysaneen ka faa'iidaysan karayna maxaynu isticmaali weynay iminka cadho iyo cadho
qoraal ahaan keenayna waa xarafka dhaadu ma hayreedii la isla qaatay inay laba laamaan laakiin haddana uu laba laamo macnaa ku haysa iyo macnaa ku haysa waxaa lagu kala garanayaa markay qoreeyeen waxaa jira kobcii afku istaagay erey bixino cidii soo saari lahayd erey bixintana qofku ma samayn karayo hadduu sameeyana dee ciddii fulinaysa aad bay u kala duwanaanaysaa iminka waxaa ka mid ah ereyga link baan arkaa waa dabar dadka qaar dabar baa isticmaalaan dadka qaar lingax bay isticmaalaan waa dadaal qofeen marka qof kasta wuxuu jecel yahay isagu tiisa inuu horumariyo oo ay hana qaado wanida ku adkaanaysaa qofkii keebuu isla helistii ayaa marar badan ku adkaanaysaa habeen adeegtantana waxaa ka mid ah ereyo hore oo afkeena ku jiray inaynu adeeg cusub siin karno tusaale ahaan markii afka la qorayayna saasaa la sameeya adduunyadoo dhanna saasay samaysaa imika keyboard berigii hore geerish iyo gawaadhida marka lagu xareeyo meesha furayaasha la sudhaa la odhan jiray laakiin imika adeegsi cusub ayaa la siiyey taasna iyaduna ma jirto markastoo erey aqooneen cusub uu soo kordho wuxuu barabixinayaa erey hore oo ku jiray waxaa ka mid ah diinta oo kale carabigu wuxuu inoo soo raacaa diinta oo ereyo badan oo aynu lahayn xilliyada waqtiyadu ka mid ahaayeen duhurka casar subax waxaa jiray kelmada aynu caadi u isticmaali jiray weliba erey saleedyadii waxaasi cuntada xilliyadaa la cuno way saareen ninka meeshii way ka saareen oo qadowba harimo cidna ma isticmaasho way saacsadaan si soo jeedin haddaba afku si loona ilaaliyo oo ereyada barasaaraya looga ilaaliyo isla markaana loo kobciyo oo nacki la gaarsiiyo heer aqoon lagu qodi karo waxaan soo jeedin lahaa 4 wax kaalinta warfidiyeenka ee afka oo afku waxay ahayn saxaafaddu 3 wax way qabataa waa inay dadka wargeliso inay dadka madadaaliso iyo inay dadka wax barto marka labada hore saxaafadeenu way qabataa laakiin saxaafadeenu ma aha meel wax laga barto kala saxaafaddu beriga horena waxay ahayd meesha afka laga barto oo waxyaabada ka sadeeya gacmeedka warfidiyeen diyaaradaha xukuumaadka u kacaa hirarka gaaban ereyada noocaas oo dhan waxaa saxaafadda ku soo dartay afkeena in hay'ado dawli ah oo afka kobciisa iyo ilaalintiisa ka shaqeeya la sameeyo dadaalka qofeed afka ma ilaalin karaan dadka afka aqoonta u leh in dadaalkooda la ururiyo la mideeyo qodobka muhiimsan waxa weeyaan awood hirgelisa in la sameeyo wax ku darsiga qofka iminka cabdixaan gulbar waa qaabku qoray buug erey bixinta computerka ereyada computerka laakiin iska yaala macno ma samaynayo haddii aan laga shaqaysiin oo aan la isticmaalin awoodii markaa fulinaysin aan la helin aad u mahadsan aad iyo aad baad mahadsantahay xamda dabcan mawduuc badan oo istaweynala oo ay ka mid tahay qabyada ka jirta farta qoraalkeeda iyo mushkiladaha ka jira ee bixinta iyo waxyaabahaas oo dhan xamda inoo martay waxaan jecelahay intaynu israacino qaybaha la jarka in wixii ku darisay wixii mataqaanaa su-aalaba aynu mar isku israacino marka waxaan kusoo dhaweynayaa diiwaan oo dhinaca naga fadhiya qaybta turjumida iyo hawlahayga isaguna inoogu mataqaanaa inoogu waran inuu isaguna israacsado la jarkiisa si aan mar isku raacino wixii dooda iyo wixii su-aal بسم الله الرحمن الرحيم أنا مهنق يا مدش برانو زي نسوا سنتي كلن كان أنا ولا بقريبا كلن دونا تجمعنا مرة ما كانوا دارنا يا قف سبيشاليست ما هي عم بهران وحوم ترجمين هران وحوم مقرين لكن غاليرانتهم يوسف قرتي لكسر كان ساعة وديت بان حواري سيجوسو سنين horta turjumintu waa dhaqan Soomaalida ku cusub amba kama jiraba haddana ilaa waana casrigeena maanta waa wax muhiim ah oo isu socodka aqoonta inaynu ka qayb qaadano waxa ku jira inaynu la socono aqoonta halkay socoto turjumintu sideedaba waxa la yiraahdaa in erey luqad kale ku qoran aad u soo gudbiso luqadda deegaankaaga laakiin waxa ku lamaan erey kaliya ma soo minguurinaysa waxa soo minguurinaysa erey wuxuu xambaarsan yahay marka danoodi baa idhaa waa dib u abuuridda ereyga amba dib u qoridda ereyga inaad hu amba midab kaloo gaar ah aad siiso ood ka soo rarto luqaddu
oo luqad kale aad keento marka waa dib u dhisida ereyada luqadaha kale ku qoran aad u soo xambaarayso luqadaadii turjumida horta waa taa haddaba maxaynu turjumida uga baahannahay luqadaha dunida lagaga hadlo waxaa lagu qiyaasaa 6,000 oo luqadood 6,000 oo luqadood malaha ilaa 1,000 luqadaha nool amba luqado qoran amba dadka ku hadla ay wax ku qoraan waxna ku abuuraan dadkaasina dee waa dadka aqoonta abuura weeye marka haddii ayna dadaal turjumaad jirin awood uma lahaanaysid aqoonaha kala gedisan luqadaha kala gedisan kusoo baxaya inaad u lahaato inaad la socoto aad wax ka faa'iidaysato aad wax ka kororsato marka turjumiddu waa dhaqanada isku furtaa aqoonaha isku furtaa dadkay kobcisaa marka aqoonaha kala gedisan dadku ay luqadahooda ay ku qoraan inaad awood u lahaato haddaynu Soomaali nahay amba haddaynu ummad muslima aynu nahay inaan bal aqoonaha aynu soo turjumino marka baahida turjumida loo qabo waa baahi aad u weyn guud ahaan sooyaalka turjumadu maaha wax iminka yimid bulshadu amba ummadu amba dadkuba intay noolaayeenba wax way turjumi jireen turjumida ha u turjumaan qaab qoraal ah amba intay dhaqamadu ay isdhex galaan ereyada hal la kala ergisto amba hal la kala wadaago laakiin turjumida waxaa lagu taariikheeyaa markii ugu horreysay Greek baa bilaabay inuu turjumidan uu turjumo waliba ay ku bilaabeen Bible-ka kale in Greek hore luqadooda lagu soo turjumo oo Latin laga dhigo nin la yiraahdo Sharon oo Greek ayaa 430 ilaa 160 ciise hortii ayaa bilaabay inuu turjumo waana ninka loogu abtiriyay inuu isagu bilaabay aqoonyahan kale oo la yiraahdo jira Safarnik oo isagu 340 to 430 yaha oo isna turjumidan hirgeliyay waxaana lahaa aragti ah in la kala saaro turjumida naska diiniga iyo turjumidan caadiga way kala gedisantahay marka nas diiniga sida Bible-ka Quraanka oo kale turjumayso waa inuu xambaarsan yahay macna aqali amba ideology kala iyo marka nas caadi iyo sheekafaneed amba aqoon kale turjumayso guud ahaan turjumidu bulshooyinka waxay ka abuurtay muran badan oo iminka hadda aragtaa kala taga diinta masiixiga oo kale ayuu kala tageen madaahib badan waxa ka qayb ahaa turjumidii berigi hore luqad kaliya ku qorneed oo Latinka luqadii kaniisada Catholic ahayd laakiin markii luqado waxa la isku maandhaafay turjumida ereyga amba ta'wiilinta amba qorqabadka ereyga khilaafkii ugu horreeyay madu boqol sano ilaa kunkiibu waxaan filaya ay ku kala tageen Catholic iyo Orthodox-ku laakiin kala tagii weynaa waa kii dhacay qarnigii 16 wadaadkii kacaanka ahaa ee Jarmalka Martin Luther King uu u turjumay naskii muqaddaska amba Bible-kii markan ay wadamadu ay yagaleelmeen waxaa timid baahi ah wadan kasta iminka wadan uu noqday Jarmalkii dal buu noqday Faransiiskii waa dal dadka Kristaanka waxay u baahdeen in Bible-ka loo turjumo luqadahoodii deegaan marka wadaadkaasina wuxuu sameeyay in naskii diiniga ahaa ee ku qornaa Latinka ayuu Jarmal u turjumay isagoo naskii diiniga ahaa u ta'wiilinaya inuu la jaan qaado baahiyaha casriga marka kaniisadii bay isqabsadeen waa kii kala tagi weynaaye Orthodox iyo Catholic iyo Protestant halka ka yimid dagaalo badan ay ka dhaceen waana sababta hadda wadamada Protestant ay ugu horumarsan yihiin wadamada Catholic in badana diinta Kristaanku iyaga badana dad tixgeliya maaha waa dad naska diiniga ixtiraam badan uma hayaan taasaa keentay inay ku xoroobaan amba saydaradii amba gacan ku hayntii kaniisadii Catholic-ka iminka wadamada Southern Europe hadda aragto wadamada Northern ayaa ka horumarsan Mareykanka Australia wadamada Protestant-ka islaamka haddaynu ku soo noqono islaamka turjumidu waxay la bilaabantay soo degidda diinta islaamka hore waa u jiray turjumid qoran laakiin way jireen waxa jiray in dadku ay kala ergistaan ereyadoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii Zayd ibn Thabit waa kii ku dhiirigeliyay luqadaha dadka qalaad barto marka in luqadda qalaad barato dhaqankooda barato aqoontooda barato aad u soo haltabaysaa waxa ka qayb qaadanaysaa in dhaqankaagu uu koro guud ahaan carabtu intuu diinta islaamka ay ku soo degno waxay dad iska hamajo iska reemiyo
sida Soomaalidu horun bay ahaayeen dad iska wax ma garata oo aan fikir badan oo toolmoon xambaarsaneyn oo sababta keentay in dagaalo badan oo caqli darre ay ka dhacaan Daacish wal Qabra oo kale iyo laba reer ay istilaan oo cabs wadabiyaan la oran jiray oo isku dilay laba faras oo kala dheereeyay 40 sano dagaalkaasi socday laakiin markii diinta Islaamka ay timid luqadii Carbeed Quraanku wuxuu u huwiyay macaani kale oo ereyga iska caadiga ah markuu Quraanku yimid wuxuu u huwiyay ereygii mabaadi iyo afkaar guud marka ninka carabka ahaa masaacageeda eriyay markuu Quraanku yimid luqadiisi waxa loo huwiyay macaani ka weyn macaanida bariga yaqaanay waa sababta keentay marka horumarka luqadda Carbeed horumarkeega mar Quraanka ka masuulaha mar labaadna waxa ka masuulaha turjumidii ballaaneed dawladda Cabbaasiyiinta ay soo gelisay waliba gaar ahaan Maamuun uu sameeyay jaamacadda ama Baytul Xikma uu soo turjumay turaadkii ama sooyaalkii Greek ee ahaa falsafadii cilmi fikirkii cilmi ijtimaaci taasina kor u kacday bay dhacday marka haddii turjumid la waayo dhaqankii waxa ku dhacay cabud oo idinku baa isku meereysanayo afkaartan idin dhex taagan waa afkaar badan horumarsan ma noqonayso oo dadka Soomaalida aynu nahay mashaakilka ugu badan Soomaalida haysta waxa weeye luqadooda hore uma qornay luqaday ku hadlaana ma aha mid dadka deegaankooda kale u talowda marka weligeedna 10 sanadood amba intii aynu jirnayba dad deegaankan ku asalay aynu nahay ma ahayn luqad u talowda dadka kale inagu baa isku mashquulsaneen oo sababta keentay inuu Soomaaligu broad yahay waa broad beena waayo halka caalamku socdo ma ogid halka la kala taagan yahay ma ogid luqada kale ma garanaysid dabeetana hawdka taagan laandheer isku haysta waxa la islaan dhulbahantaa nin ay maadarihiin baa jeelkay markaas uu waxaan soo arkay dad fara badan oo waaliin islaantu deejayna ma taqaan waayo hawdka ku hodlay joogtay marka waxay kaga falcelisay boo shirshoo la maleeyahay yani shirshoo waa ayada malaayiin waana kuma qaldan waayo deegaankayga ma dhaafin fikirkayga waxa saameynaya ereyada ay la isticmaalayso Islam karo habarisa waxa la yiraahdaa Ingiriiski iyo waxa habarisa baris qabsato waxa tiriilaha guudaha kala yaraan marka Ingiriisku wuxuu ugu sameeyay iyada reerkooda marka reerkooda awood leh marka ma kala garanayso macnaha Ingiriisku yahay iyo wuxuu yahay awood marka hadii aanay aqoontu isku talaabin adigu baa isku dhex wareegaya marka halka la kala taagan yahay ma ogsoolin marka tarjumadu waxay aad inoogu faa'iideynaysaa inaynu ogaano halka caalamku kala socdo inay aqoonteenu korodho inuu xataa maskaxdeenu qaabka aynu fikirana ay kordho waxa jira haddaba dhowr aragti baa jirto sida loola tacaamulayo naska la turjumayo aragtida oranaysa waa aragtida conservative-ka ee muxaafidka aaminsan badan sarreynta luqadda marka la soo turjumayo nas marka aragtidaasi luqaday aad u aaminsan tahay ama Soomaali ama Carabi ama wax la doono nas waa iska erayo Soomaaliga isku fiicin marka la soo turjumayo aragtidaas waxay aaminsan tahay in aan naska la soo turjumayo aan ixtiraam badan la siin laakiin la siiyo luqadda loo soo miin guurinayo inagoo luqadeena ilaalinayna marka aragtidaas waa aragti badan waxa ku jirta is-ururin luqad ixtiraamid badan aragtida mid baa ka sii farcanto in naska la ta'wiiliyo amba la qoor qabta inagoo luqadeena ixtiraamayna marka waa in naska la ta'wiiliyo oo la qoor qabta taasina badan qofkii akhristaha way qaldaysaa waa in micnihii qoruhu qabay uu qoray ayaan soo turjumay aragti kale jirto in naska la soo turjumayo sidiisa loo soo dhigo inagoo ilaalinaya deegaanka loo soo turjumayo haddaba waxaa jira xiriirka turjumida iyo luqadda maxaa ka dhexeeya doodo badan baa in maanta xagga dambe aynu kaga hadli doonaayo inayna luqadeenu ama Soomaaliga una ahayn luqad aqoon qaadi karta guud ahaan turjumidu luqadda deegaanka waxay ku leedahay door weyn oo inay tarbiso inay horumariso waayo luqad kasta markay la falgasho luqadaha kale ayay kortaa kobocda ay ballaarata ay horu marta marka markastoo ay turjumidu ballaarato waa markastoo luqadii ay kobocdo Soomaaliga ugu horumari leeyahay luqadihii kale wali islaamiyay falgalay marka luqadaha markay isirdiyaan ay dagaalamaan ay isriixaan ay wada dhaqmaan ayaa waxa ka dhex dhalanaya horumar badan marka in la isku dhiso luqadaha weey
laakiin turjumida iyaduna waxaa haddaba waxaan ka hadli doonaa xidhiidhka turjumida iyo dhaqanada. dhaqanada turjumiddu waxay la leedahay xidhiidh aada u weyn oo markaad wax turjumayso waa inaad luqada u taqaano maaha just inaad English ama French ama Carabi aad taqaano maaha inaad soo turjumi karto matuuj fikriyo weyn oo dadkaas ay qoreen, laakiin waxa ugu muhiimsan inaad taqaano dhaqankii ereygani muxuu xambaarsan yahay, qoruhu ereygan muxuu uga jeeday. ereyo badanoo waxaa jira aan sidooda micno u lahayn laakiin micnaha uu siiyey badanaa siyaaq taariikhi ama context historically uu siiyey. iminka ereygan intellectual faransiiska amba intellectual waa erey innaga halkan aqoonyahan baa ma laydhaa, indheergarad baa laydhaa, kolba waxba iska ma laydhaa, laakiin ereygaasi wuxuu ku yimid siyaaq qaara oo faransiiska waxaa ka dhacday 1798kii in nin faransiis oo yuhuudiya la xidhay. dabeetna dadkii aqoonta lahaa ama dakaatiradii macallimiintii ayaa u dooday. dabeetna saxaabadii faransiisku waxay markay dhacdada ay ka qoraysay waxay tiri dadkii fikirka u dhaqdhaqaaqayay arrintaa u dooday askariga faransiiska yuhuudiga lagu soo eedeeyey inuu la macaashi jiray amba uu dheg u ahaa jarmalkii ayaa xuquuqdiisii u dooday. marka qof kasta oo aqoonyahana oo danta guud amba public sphereka amba ka hadla ayaa la yidhaha waa qof intellectual. marka intellectualku sidiisa micno uma leh, laakiin siyaaqa taariikhiga markaad aragto ayaa micnaha siinaya. marka haddii aanad dhaqankii garanayn amba ereygan wuxuu taagan yahay garanayn, inaad luqado aad garanayso keliya ma aha inaad turjumi karto. Shakespeare gabayadiisoo kale markuu gabadh ammaanayo ayaa wuxuu ku ammaanaya samarka. ingiriiska iyo jarmalka iyo wadamada barafku ka da-aya samarku waa wax qurux badan, laakiin innaga amba dadkiina qarfahaya oo saxralmoodka ku nool haddaad gabadh ku ammaanto xaagaa iyo wax kulul iyo waxaad maskax caqli maaha tahay, waayo innaga waa cagsi, waa total cagsi. marka in dhaqankii aad taqaanaa waxay ka qayb qaadanaysaa inay turjumidii sax. marka ninka turjumaya hadduu gabadha uu Shakespeare ammaanayay hadduu ku ammaano isla ereyga uu adeegsaday una isku dayin ereygan erey la mid oo deegaankeena micno ka samaynaya, markaa dee naskii gabayaaga qalad weyn badiya ma ka gashay. marka turjumidu maaha inaad erey aad ku eegto. waxaa kaloo jira xayawaanada qaar ayaa degelada ay joogaan ayaa waxay ku caan yihiin in loo adeegsado maskax yari amba habaan. woodcockskoo kale amba digaag dibadeedu ingiriisku wuxuu u yaqaanaa inuu ay ka tilmaamayaan qofka lagu tilmaamayo inuu qofkaasi bilaa maskax yahay, laakiin adigu haddaad digaag dibadeed aad ku turjunto oo aanad qofka akhristaha u raacin digaag dibadeedu waxay ingiriisku u yaqaanaan micnihii ma keenaysid. iyaduna waxaa jira marka mahmahaha lasoo turjumayo markaad leedahay carrying coal to Newcastle amba ninka dhuxusha Newcastle geenaya. Newcastle waa waxay ingiriiska ku caantay waa wadan waa magaalo dhuxushu ay ka soo go'do. marka haddaad turjunto innaga xagga amba carabtuna waxay tiraahdaa baa'ic almaa fi xaalat alsaqaayin amba ninkii biyaha ku iibinayay xaafadii biyolayaasha. markaad waxa aad turjumayso waa inaad magaalooyinkaasi amba tilmaamaha ay leeyihiin aad tixgelisaa. waxaa kaloo jira iminka buumada waxaan carabta ay taqaanaan amba ingiriiska amba reer galbeedka culturekiisa waxay ugu tilmaaman tahay shimbir aad u maskax badan. carabtana waxay ugu tilmaaman tahay wax u taagan shar iyo dhib badni. badanaa waxay ugu yeedhaan sodohoo kale waa buumay koranay, waa islaan dhib badan oo inanteedii odaygeedu ka shaqayso markaa dhib badnida. laakiin reer galbeedka culturekooda waxay ugu tilmaaman tahay qof maskax badan. imanka filinkartoonka hor haddaad aragtaan iyadiyo geed taagan oo muraayad xidhan oo caqli fiicniin matalaysa. marka haddaan siyaaqaadka thaqaafiga aanu qofku fahansanayn dhib badan buu keenayaa. waxaa kaloo raaci lahaa iminka dameerkoo kale innaga wuxuu noogu tilmaaman yahay maskax xumida iyo habaawada, laakiin inkastoo reer galbeedka nagu tilmaaman yahay haddana sida amba naskaas amba ereygaasi rarka micnaha uu samaynaya xaggeennan iyo xaggooga farq badan baa u dhexeeya. xisbiga dimuqraadiga waladeemka dameer baa u aastaan xaggeennan ka suurtagal maaha, yani waxa u taagan yahay maskax xumi habaaba, laakiin halkooga waa u taagan yahay. imankoo kale saxaafaddu waxay soo qorayeen tartanka doorashada Mareykanka oo u dhexeeya donkeys iyo elephant.
marka haddii ninka Soomaaliga ama ninka Carbeed uu akhriyo dameerkana wuxuu odayga u qaadanayaa murashax maskax xun maroodigina wuxuu qaadanayaa murashax xoog weyn oo ballaaran oo calool weyn marka xayawaanadaas xataa micno bay leeyihiin marka laakiin micnaha waxa siinaya dhaqanada iyo dadka ay ka kala yimaadeen waxaan kaloo raaci lahaa ideolojiyada iyo tarjamadu badanaa laba siyaaboodba way noqon kartaa iyo horta dee sayskoogu waa in aqoon lagu kala gudbisto laakiin doodaha qaar baa qaba in dhaqano kale ina soo gelayaan oo afkaar kale ina soo gelayso oo diinteena kullida xataa berigii amba dowladdii cabaasiyiintu ay soo turjumisay turaadkii amba culturekii iyo aqoontii greega culimo badan baa jiray axmed ibn xamed baa ka mid ahaa wadaadkii kale Ghazali baa ka mid ahaa oo falaasifada xilligaa badan doodo badan iyo amal la galay waa sax bulshadan amba caalamkan waa isku furmay marka isku furanka inaad u diyaar garowdo oo aad la doodo mooyaane laakiin inaad isku ururisaa oo waxa aad iska dhicida kulleydii fikradahan iskaga qaban kalimaysid marka number 1 ideolojiyadu waa saameyn weyn bay ma ku leedahay oo iminka ingiriisiga kale waxyaalaha ugu badan ee luqadaha wax lagu qoro weeye dadka cultureka reer galbeedku badanaa luqadaha kale kama turjuntaan haddii ka turjuntaana waxay u turjuntaan waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin iyagoo ah sarrayntii dhaqan matalaya laakiin bulshooyinkiina soo koraya markaynu turjumanayno amba aynu cultureka ka soo qaadanayno waa dhaqan inaga sarreeya inaga awood weyn marka waxayna gelaysaa rahbe iyo dee inagu marka aynu isbarbar dhigayna inaynaan la tartami karin marka habla dhaqanka aynu la dhaqmayno naska halka ka soo baxay ixtiraam badan bay aynu siinayna waayo wuxuu ka soo baxay dadkii aynu beegsanaynay amba inaga horreeyay horeynta aynu isdiidsiino amba aynu ogolaanay waa wax jira weeye marka iyadana in la ogaado iyadana waa muhiim waxa kaloo jirta iyadoo ishkaaliyad amba dhib mustalaxaadkan amba bixinta marka la soo turjumayo mustalaxaadka matalan falsafiga oo kale ama fikirka guud xambaarsan badanaa dadka wax turjumaa qalab badan bay yaama ka galaan waayo erey waxa laga yaabaa rar micneed oo gaara leh inuu ninka turjumihii oo intuu ismaamulo kiyo dadaalaya uu erey qaldan uu dadkii ugu soo turjumo ereyga qaldan ee aad ugu soo turjuntay micnihii ayuu meesha ka qaadaya marka kullu ninka qorahan xaqiisii ma siino fikradii uslaha gudbi ayay u soo gudbisatay iyo qoto ah at the same time na qofkii wax akhrisanayay ayad isna sirto waxaad uga dhigtay inuu ninka qorihii aaminsan yahay fikradan adigu aad ku turjuntay marka qorihiina dhibad ka gashay akhristiina dhibad ma ka gashay iminka fikirkan markasiga amba bidixda Karl Marx iyo Lenin iyo dadkii soo turjumay waxay soo turjumeen iyagoo faham badan aan ka lahayn dibadda waxa dhacayba inay fikirkii ay madoobeeyaan amba sidii ay qorayaashaasi ay u qoreen ay u soo gudbeen marka la iska imatiro masaxba masoo qal dood kale ilaa heer mufakiriin badan ay ku doodaan iminka waa in dib loo wada turjumaa turaadkii Marx oo kale amba culimadii falaasifadii kale waayo waxa laga galay dulmi weyn adiguna halka bad fadhidaa hargeysa fadhidaa waxa is leedahay fikirkii wada haysaa wada akhriday ma akhrinay kadab dhexe ayaa wixiiba waaday marka iyaduna iskaaliyad badan baa jira tarjamadu haddaba Soomaali ahaan inaga imika waa baahi badan baynu qabnaa laakiin haddana day burburkii kadib iyo dowlad la'aanta amba dowlad caadi oo roolkeega ciyaarta la'aanteeda jirta waxay keentay inaan dowladdu ayna ka qaadan roolkii ay ahayd in qaado waayo tarjamadu ma aha wax qof amba qof ay qaadi karaan way sax waa macquul in anigu aan turjumo aqoon aan u leeyahay luqada kala gedisan laakiin haddana oo turjumo waxaan jecelahay anigu in ka sheekafaneed baa laga yaabaa inaad turjunto amba kitaab baa laga yaabaa inaad turjunto waxaad jeceshahay jacaylkaaga ku salaysay laakiin marnaba ma aha wax fikirkii iyo aqoontii bulshada kor u qaaday marka tarjamadu weligeedba waxay ahayd camal institutionsku ay qabtaan oo mu'asasiya oo hay'adaha dawladdu inay qabtaan ay tahay waayo waxay u baahan tahay kos badan bay u baahan tahay awood badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay aqoonyahan badan bay u baahan tahay oo agabkii aqooneed leh
marka qof wax turjumaa inuu ku darsi fiican ku sameeyo mooyaane laakiin harraadkeedii marnaba ma tirayo adduunka oo dhan iminka tarjamaada waxaa sameeya dee waddanaa sameeya Spain oo kale 10 kun oo buug bay usoo turjuntaa sanadkiiba luqadeeda waana waddanka yar Lithuania oo kale 4 milyan ay ku nool yihiin inagu aan isleenahay intaasoo kun oo buug bay usoo turjuntaa sanadkii oo kulturada kala duwan marka waa wax institution ku qabta wey dadaalka qofeed wuxuu u noqon karaa baritaan amba taageerid buu u noqon karaa laakiin marnaba ma buuxiyo baahidii aynu u baahnayn taana waa waxa dee ay dowladaheenu haddaynu Soomaali nahay ay iska gaashan karaan oo meesha kaliya iska gaashan kara weeye maadaama aynu dad Soomaali ah oo luqad midab ku wada hadalna oo dhaqan kaliya leh waynu u baahanahay inaynu iska gaashano meelahaas oo kale aynu samaysano institution tarjamada iyo turjumaada u gaara fankiisana laga wada qayb qaato aqoonyahankuna lagu soo wada ururiyo inkastoo ma garan karo dee aqoonyahan Soomaaliyeed oo funuunta caalamka kala duwan jira soo turjumi kara inay jiraan in kale laakiin waa arrin ay tahay laga hawlgalo waxaan kusoo gabagabeynayaa shuruuda looga baahan yahay qofka turjumaha horta waa inuu luqadaha yaqaano source language-ka uu kasoo turjumayo iyo turjumayaba luqadda kaliya inuu yaqaano maaha waa inuu dhaqankeygana yaqaana dhaqanka waxaa ka wadaa inuu dadkaasi siday u fikiraan inuu yaqaano oo ereygan deegaanku kasoo baxayo xuluulada amba rarkan micneed uu leeyahay waa inuu fahamsan yahay waxaa laga yaabaa dhowr erayo kala micno ah amba qoruhu uga dan lahaa inuu dhacdo gaara uu siiyo ereyada qaarna micnahooda waxaa bedelaa qoruhu wuxuu uga dan lahaa amba micnahay laskula istilaaxaan bal iskula fahmay in uu ereygaasi qaato marka haddaan aan dhaqankii fahamsanayn dhib bay tahay at the same time inuu qoruhu markuu buug turjumayo uu buugga si fiican u akhriyo waqti badan siiyo adeegsado dictionary-yada kala duwan uu adeegsado fiilkan uu ka turjumayna isagu aqoon u leeyahay yani nin luqada yaqaanaa ma turjumi karo buug ilaa uu isagu fiilkan aqoon u leeyahay amba uu wax badan akhriyay waayo mustalaxaadku waxay u baahan faham haddii aanad aqoonta fiilkan aanad u lahayn oo trauma ingiriisi baan aqaana ama French baan aqaana waan soo turjumaya dadka waad dhacaysaa waanad qalbaysaa markaa dhib badanna waad u geysanaysaa da'yarta badan ee buugaagta akhrisan doontaa marka waxaa loo baahay aqoonta inaad garanayso aqoon garasho u maaha waa inaad akhris fara badan oo thaqaafaadka amba fikirkaagu aad u leedahay waxaa kaloo shardiga inaad cadaaladda amba runsheegnimada aad ilaaliso oo ereyga soo turjumaysa waa inaad ka run sheegtaa oo inaanad adigu intaad ismaamusho aanad qoor qaban oo aanad matalin dee intellectual wax fahansan oo aanad ereygii aanad xajimayn weydiin baa odhanayso luqadda Soomaaliyeed waxaan jecelahay in hadhow ay noo noqoto dood ma tahay luqad xambaari karta aqoon ma tahay luqad aynu ku qori karno cilmigan cusub ma tahay luqad aynu ku turjumi karno aqoonta adduunka taal ma tahay luqad qofka Soomaaliga ka caawinaysa inuu la jaan qaado isku furankan aqooneed ee maanta dhacay doodaan ninba siduu u arki karaa oo luqad aan loo bedeli karayn luqad aqooneed ma jirto luqad kasta waxaa loo bedeli karaa luqad aqooneed dadkeegu baana ka dhiga luqad aqoon xambaari karta juhdiga iyo dadaalka iyo soo jeedka badaneed geliso luqadaada ayuunbay ku noqon kartaa luqad aqoon xambaarta la tartantaa luqadihii kale laakiin Soomaaligu hadda ma tahay luqad xambaarta waa may hadda maaha laakiin dee innagay inoo tahay inay doorkaa qaadano aynu ka dhigno luqadeena luqad aqooneed oo aynu tarmino waayo luqadu waxay ku tarmaan siraaca amba hirdankii ku tarmaan laakiin intaad halkaa aad iska joogto aanad kuna faanayso luqadaydu waa caynkaa dee faan ku noqon mayso laakiin waxay ku noqonaysaa shaqo iyo turjumid iyo dadaal badan waxaan kusoo gabagabeynaya tarjamadu waa arrin dowlad u baahan dowladdu waa inay siyaasad ka yeelataa laakiin waxa weeye rejiimyada amba talisada dictatorshipku badanaa way kala dagaalamaan shacabkooda inay turjumida lacag ku bixiyaan waayo talisku systemka siyaasadeed ma haysan karo ilaa shacabka uu ka xanimo informationka marka haddii shacabka laga xanimo informationka oo laga dhigo shacab loo kala
shacabkaasi lagama yaabo inuu kacaamo lagama yaabo inuu aragtiyo cusub ay kusoo biiraan waana dee tiisiyaad bare ee aan maangaabnimo lahayd ayd in la soomaaliyo aqoonta waa sax waa wax saxa laakiin ma ahayd niyad amba fikrad saxi ma ahayd inaad dugsiga sare iyo hoose dhexeynta wixii turjunto dadka Soomaalidana aad ka soo saarto dad luqad kaliya ku hadlo luqadaha caalamka oo dhan ka xiran marka waxa soo baxaya qof Soomaalida hore aynu ka sheekeynay laaneeraha ay aan waxba caalamka ku ogeyn marka qofkii waxaad ka xanibtay sooskii information-ka waxaad ka xanibtay isku socodka caalamka waxaad ka xanibtay in afkaartan caalamka la jaan qaado la doodo wax ka koobiyo kula soo noqdo deegaanka marka in aqoonta la Soomaaliyeed waa sax laakiin ayabkii ma haysana in aqoonta la Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay in luqadda Soomaaliga loo soo turjumo sanadkiiba kuma kunbu in maktabada Soomaalida lagu soo kordhiyo oo inanka yara jaamacadaha iyo dugsiga sare dhigta maalin kasta heli karo buugtii soo baxday Chinese-ka iyo Korean-ka iyo Japanese luqadooda ay ku dhigtaan laakiin luqadooda ay ku dhigtaan daliil ma aha laakiin maxaa u saamaxay luqadooda ay ku dhigtaan dawladahooda maalintii uu soo turjumo sanadkiiba kuma kun kitaab marka baahi ay luqad ajnabi ay ku dhigtaan laakiin inagoo Soomaaliya oo inaan soo turjumi karin awoodeedina aynaan lahayn agabkayga aqooneedna inaynaan lahayn inaynu ku faano aqoontiina Soomaaliyeedna waa indhacday iyo waali weeye iyo waxaan aan soconin marka agabka marka diyaarsato ayaad aqoontaada Soomaaliyeed garan kartaa hadii kale waad si baraynaysaa waa dadkii waxa soo baxaya qof jaamacadda wadda ka baxay oo haduu safraan departure iyo arrival aan kala garan karin waana kaalinta weyn weeye intaas ku soo koobaya waxaan jeclahay inta kale dooda iyo falcelintu in xaqiiqda ka timaado aad baad ugu mahadsantiin haddii aan wax ka tagtagina waad intuu qaadanaysaa oo waan qotay falada si fiican isaguna nooga dhaqdiyeyntii aynu u hastaynay ay ahayd turjumaada iyo baahida loo qabo iyo su'aalaha ku xiran waxaan jecelahay dabcan sidaan ciwaanku ahaa u falanqayn bay ahayd waxaynu ugu talagalnay kulankan qaybta ku baynu gelaynaa qaybtiisa ugu muhiimsaneed goboldhigii xamdiga lama hadii ay noo sameeyeen oo ay xaqiiqada asaasiga ka bixiyeen waxaan ku soo dhaweynayaa cid kasta oo wax ku daraysa ama dood ka gelaysa intii la ahaan bariiro in marka mararka qaar baad soconaysaa ka fiilku waa luqaddu ka mid yahay ka waran haddii xaraf kasta oo dhaca oo la bilaabma xarafka ka dambeeyana uu noqdo shayban fiil la saaro sida loo kale fiil loo saarayo dibad halka laga dareemo inuu wax kelmad soo ama adag oo carabkii ku adag ay halka ka dhacdo da oo kale lo oo kale kelmado badan baa fiil ka raacay marka saas oo kale xaraf kasta oo dhaca oo ka dambeeyo maxay ahayd sida midka cadho oo kale fiil xagga dambe laga saar maadaama ay dhacayaan la lidnaabi karaan midda kale diibaan ee aqoonta in la Soomaaliyeeyo laba in lagu kala qaado mid waa aqoon cilmiya midna waa aqoon aragti aqoonta cilmiga iyo waa tiidisiga baraba Soomaaliyeeyo iyo deegaanka turjumaysa tusaale fiisigiska iyo juqraafiga iyo ila aqoonta la deegaanayay noqonaysa deegaanka Soomaaliya lagu sareeyo laakiin aqoonta aragtida taas waa tooba fahamka ballaaran u baahan in luqadda turjumaysa dhaqankayga barato tada dhaqankayga taqaano oo saameyn inteeda bilowday dhaqan soo keenaya maxay bulshada aqoonta aragtida soo turjumay ama falsafi ama siyaasi ama culum kala ahaato maxay dib ku keeni kartaa bulshadii sidee baa si dhaqankoodii iyaga loogu daayinaa dhaqankoodii loogu utumi karaa loogu qaraaci karaa wax dhaqankoodii ka turjumayna noqon kartaa wada falsafiga masaariga ama falsafiga Greek ama falsafiga galbeedka iyo falsafiga Soomaaliga way ka soo noloshii bay'ada inagu nool adag oo reerguraaya oo geeltida oo xoolo dhaqata ay falsafadeeda dabiiciga ku salaysan tahay iyaga halkaay wax soo saar iyo bir iyo nolosha ay ku salaysan tahay markaas sidee teeni iyaga marka labada aqoonada in la isqabadsiiyo oo inagu mid gaar ah yeelano laakiin inagu toodii u baahan iyaguna toodii ay iska wataan laakiin hal iyo jeer turjumaada tooska u baahan direct translation waa cilmiga oo la deegaanka lagu salaynayo سؤال جغرافي حكي لقى لقى لها إيه نبغى جغرافي وكلام
xilligii dawladdu iska burburtay dugsiyada maaliyaddii kala duwanaayn qaar Kenya loo dhigi jiray qaar Carabaha loo dhigi jiray qolobo meel laakiin inaga inta la soo turjumo marka ay roontii laga hadlayo mudug iyo tusaale loo soo qaato dhulkan carada asta marka carada tirsan lagu beeranayo banka wajaaliyo banka toon iyo banka beer iyo dhulka la soo qaato biology oo kale marka laga hadlayo sidaas leeg chemistry marka laga hadlayo kala sidaas leeg marka aqoontii la deegaamiyo lana soo maray inta soo gudbay salaam ومعتني مرتديان يا حمد أنا واحد كنت بلاقي كسر صومالي قدرت قرية واحد هاي من أختار وقتها واحد وين صومالي وحبا كل حشرة وقدر عينو قال أنا ولا هاي تبين ما كان وقدرني صومالي تاس ما قرنا تذكر بوقت قرانا واحد قرانا وقدرها كلام كل حشرة ما كان واحد لنا روتشيل كعصف صوم خرية مثلا ما كان لنا هاي مغسيل كبوليجا dadkan kale waxaan ku dhahdaa koonfurta kale waxay kooranayaan meesha waxa u yaqaanaan wax lagu kaydiyay inuu store la store markay leedahay gurigii waxba lagu kaydinayo alaabtii lagu dhiyay baa la dhigayaa store-kaas Soomaali maaha luqada kale Carabiga baa jiro inuu aan Soomaali ka dhigin marka luqadeeni aynu ka dhigaynay markaasi amaana turjumaa ma buuga la qore sidee bay saafi ku noqonaysaa saynu jiilkeena aynu ugu bedelno سبعة كذا إن أقولت الذي واضح أو يفهم كيف يسوع دوين الإنسان قف صومالينا لكن واحد كهذا يانو ما دام أين كباسيتي هيسن ما دام أين أجر فيه وحدود رجوله أين هيسن ما دام أجر تقاريه أين هيسن مرة هيجي إنه مرة أجنبي قف صوماليا أو قرآن إنه النص أو به كلدونا إنه استعماله أنت أودي ذهنه ويكون قديسين تاني المدن إنجليزي أدوات الإكسيتورية الصومالي أدوات الإكسيتورية هو مكرتها مركا هذه حتى تروح يد دليلات كذا هذه على سبب كذا أخويانا الصومالي حد يجيكم بيستاهل إلا أنت أنا أفكر بيجي سياد العلم وحبرتين وعطتك وقول والله إلا ما أنت إنك رحت المعلم وأساس هو أساس أول وأساس أقرنه أقولك إن قديسين ولغتك إن قديسين وحبرتين عن كحنبين إن الله سعود عن أقومه عالم وجودي لكن أنت الصوماليين يكسير سرور في اليوم وحسكسوا بحيث عن دين على عين دان محلا أخرين كريم لغات كلا وحلا أخرين كريم أقومتي كل الصومالي ما معها أقوم بفلو سامع حسين وعلمي وهلو مركا أنت اللي هري أنا حاجة سنة هي الصومالية أقومت لكن أنت اللي هري أجل كي أنت اللي هري دغاني أنت اللي هري أكتيري أنت اللي هري تذكر كل فرق بيننا يا قفك الصومالي العديم يا مصوص على النقيين عندي يعني يصيروا إسلام كريه هو تكشوتوا يعني واحد كدوني ما كان قف لا ترتبط كرا عالم كي لغة استعمالي كرا عقومة أي فقرات هاي تكموجودة علم في فكركم إنه أخيكرو إن لو سهلوا لغة أو حروبه وأيضا كان حل يجمع وقتك إلا إنك وأنك يا أبوي أنك إنه قلت المعمولي ما أرقام بس اللي ترى في وحبرتيو إن إلهي وفرجوا أنتوا يلو ما مريت تجدي وحبرتيو يعني لكن من كلام ذكرت المعمول هو وحنا أرقام معها أفكار لو بهاي صافي أنا سيد صافي لو بدي أشواريه إذا تيجي لو ما بكرة يو شاشي تبع بالحكم تفهم بالمريا سمع حاجة حركة كردالة ما هو كي يغير في شرطان الصومالي حركة كردالة أنا هذا وحنا مثلا هاي أنت أنا لو بيشين أفكو سبي وها هل كي لقيتني يوقف كساو احترامه وسودينا فرح بدنا يقفوا وميل وراك عياف ورسيفوا الفمانيان لكن أفكو حركة الصحة من نحوليسة أيام لا يديب له نقطة أما وحبان كل شيء وحلا هذا وحسين بشيء كنا هاي إنه قال الله لكن إنه كانوا واحد يجي لها إلا أبلو يسكتين كما يسكتين ما تعرفون هنا الصومالية ذي أفتح حسين يدرين يكفوا جري كشقين يا إن الإسلام ما يدعم قبيلة فرح بدنا يأفتح كل شيء أنا كان ترى ريبحينتا صراحة ما قلت بينه قريسا مرة كانوا حجرة إليا إنه لا نهاي لكن عربي هو دينتي صورها عي إنجليزي وأقوم صورها عي أنا لو قلت كلاسيك اللي لو سوق بيا أي إلي اللي هراي كيسني أي بربحنا يا تاسوا الخس ذكر وين ويا إلي على هيستو إن كل ما كسوق على الاستعمار صراحة أنا بقول فول هيستا حد وجهه استعمار هيسا منا ووحلا أقبل كرايو
oo iminka ereyga dimuqraadiyad ma haysano hay-adihii erey bixinta sameynayay marka dadku ku qasbanaanayaan ereygii usoo raacayay ilbaxnimada iyo aqoonta inay sidiisa ku qaataan taasna de waa hay-adihii baynu weli u baahanayo oo shaygu aqoonta markay nagu cusub tahay ama shaygu na soo gelayo in erey bixin la siiyo islamarkaana awoodii fulineed la raaciyo marka mar walba waxaynu u baahan tahay meel ay isku keento oo aqoonteennii iyo dadaaladeenii intay inoo ururiso inoo weeraysa islamarkaana inoo hirgelisa ereygiina haddii aan la isticmaalin macnama samaynayo waxaa macnaha u samaynaya waxayeen adeegsigiisa wuxuu noqon doonaa un muddo kadibna wax la ilaawayo laguba murmo miyuu jira iminka tusaale ahaan dhabcaan ereyo kale waxay ereyo la isticmaali jiro caadi loo isticmaalo afkeeda ka mid ah iminka laakiin waabay ka baxdayba meesha bakayl baynu isticmaalaa maxaa markaa sababay in ereyga aynu lahayn oo ereygeeni noo bedelo marka waxaan isleeyahay waa adeegsiga ayaa qaybta ugu weyn ah dadkeena waxa qoraya ereyada aynu leenahay inaynu halkooda ku ilaalino aad baad maasantihiin soomaalida kale iska wadaama dibadda iyo aad ku tirada badan waxaa imanaysa dood ah kow buugtaasi aqoontayda xambaarsiin ma waxay sidaan soo kordhinayaan labo qiimaha isbedeli keeni karaan iyo mataqaanaa majaalaad awoodda saaran ay u badan yihiin mataqaanaa inta badan wax laga qoro waxaan jeclaan lahaa xabdiyadu dambeyd ay mawduucaas ku darsadaan committee-kana ku daraysaa waxaa la waayey waxay wax ku qortay oo dhan sida manaahijtii dugsiga dhexe dugsiga sare iyo weliba jaamacadihii afka soomaaliga ku qornaa gaar ahaan marka ma la dhihi karaa arrinta macnaha waxaan rabay su-aal inaan ka dhigo sidee bay ku dhacday in la waayo amaba ay ka baxdo dukumentiyaashaasi gacanta dadweynaha mise waxaa la dhihi karaa waxay ahayd wax dowladdu haysatay dowladda ilaasanaysa dowladda alcanaysaas baa lagu waayay mise si odakac baa loo waayay sidaa tusaale dukumentiyada iyo guryaha waan haysanaa sidoo kale waxaan haysanaa shahaadooyinkii jaamacadaha bixi jireen marka deegaameynta aqoontu in luqada waddankaasi lagu dhigto saameyn oo in la waayo macnaha tusaale su-aasha inaan isweydiiyey adigana haddaad ku dari karto waan jeclahay haddaad tusaaladan usoo qaato hadda libiya oo kale waxyaabo badan waddanka free kaga dhigay wax badan u bedelay ayagana saasoo kale ma laga yaabaa inay ku dhacdo oo la waayaba tusaale kale waxyaabihii freega ahaa ee basic ah markii deegaameynta aqoonta ka hadlay af soomaaliga waa run aqoon ma qorna waa sababta akhriskiisu u yaryahay oo aqoon badan oo afkii ku qoran oo aqrina ma jiro waxaa su-aasha imanaysaa waxa weeyaan maxaa af soomaaliga ay aqoon ku qormi weyda ama mawaadiic oo aad u fudfudud tusaale ahaan sheekooyin taariikh qofeed suugaanta lafteedu waxay hal abuurka soomaaliyeed ama fikirka qofka soomaaliga ah oo ah laakiin nagu suugaantiina sama eegno maxaa falsafad ku jiray aragtiyo noociyaynu kala soo bixi karnaa aragtiyo marar badan dhaqaalaha ku jira kuwo diineed baa ku jira kuwo falsafadeed baa ku jira kuwo bulsheed baa ku jira waxaasoo dhan ba eegno marka suugaanta hebel la qorayo tixdiyo sideeda unbaynu qornaayo la tirinaa waynu sidana waxaa laga yaabaa muddo kadib sida qur-aanka waaynu nidhaahno hebel baa sheegay ama tusaale ahaan marka laga hadlayo caawimooyinka dad badan oo iminka aada uga doodaan jiro oo aqoonyahan banadan oo dhaqaalaha batay wuxuu laga yaaba 20 sano ka hor inuu timacda ka geliyay mushkilada ay caawimada ku leedahay wadamada Afrika iminka marka laga hadlo la yidhaahdo agwaan aan leenahay jira laakiin ma eegno qontada iyo dhumucda maansada ku jira ama muxuu agwaanka ku tiriyay sideeda umaynu u qonaa marka waxaan isleeyahay weli qabyada faraha badan ee uu qofku ka cabsoonayo aqoonta uu isleeyahay qofti afkan kuma xambaari karayo ama marar badan waxaynu aragnaa aqoonyaha soomaaliyeed oo luuqado kale ku qoraya ingiriisiga oo kale isagoo markaad hadalkiisa eegto tusaale ahaan samadkan ama golkan oo kale waa qofka soomaaliga aqoon badan u leh laakiin haddana inuu ku qoraa weli way ku adag tahay waxaa laga yaabaa inuu ama ka cabsoonaya uu isleeyahay weli ma jiro agabkii aqoontan aad hayso kuma xambaari lahaa taa waxaad ku dareemi karaysaa adiga laftaada haddaad istiraahdo mawduuc yaroo kooban ka qor inay marar badan isla helista erayadu ay aad kugu adkaanayso oo imika la bilaabayaba
لكن كلمة إنجليزية ما كان استعمال صدق إنت هاسو بروح وأنا بروح بروح يا واحد يلا تحي ولا إسلام تجي ولا إسلام كتحي هذا الكلمة كائنة مركوني صوت كانوا هم رئيسنا نوع مواضيع يروح كوكونا فلوسوان رئيس بدن عن هي عن حاجة باهي حسلي وتحولي قبيلة أفكار كم كيف يا موضوعنا أبا كتب ترسل إنه كسرنا الآن وكفر تقريبا ضدنا الآن ويقول قرآن قلت إذا ما قلنا عليه وطلع ألف عام أمام ضمني لكنه لما إلى ذلك قلت البوليس واحد سهلا معه واحد يقول سهلا هو هاي قفر القرية أنا واحد في كون القرية وإنه متيس شمر التعقية يعني أتيس أقولتي دي أبى كي أبى ويلي أبى الهيوي لكن تروح عن فريستو هسكح حريقو جد يوصل أيو سيان بهرو تاي تقرأ وعدين بدأ يقول كده سوى حاجة مستقبل قامت مع طرف ضمن إنه شد أيو أبورتو طبقات intellectual وفيها أو مثلا وقال هل أنت سوى جروب قرية automatically إن خير سوى كوريا وحنا كده نروح مولد رول مولد كنا قفت لو حاجة يا إنه نحق والله لكن ده كان كيف فكم كان عيبا فرق هذا عيبا أسري تروح حلول كبي كرامة عن الله يروح نقولي توجيها لكن حلول كبي كرامة نقدي شوكتا أو إني أبا إن كان تساسكري يروح نقولي مرة قفلي وحقولي يروح كل عيا بقني يو رهبة كل عيسى وننا سوقي الجروب نروح نقولي يعني نروح معنا بنا وهاي سوق قيمة ما هي ولا حيمني سؤال نقدي بدل ما يمني سما كسرنا نوكر حكم يوم ما يكون وقتا وحنا نسكتوري إن تيتركا لقاطه أنا سيد هذا أقولون تيجي آخر سكيد يوم قالوا أي كيان وحنا يوم طبعا معنا بدل مصاري كل شيء وحده رئيس آخر في عن وناس أيضا قرف عن مقرع قف عن آخر ساعة قرف عن مقرع إنما لو حضرتك سألت وحقري ولكن آخر سوق ونقومين وحق فيها لكن آخر سوق ونقومين إشكالية أنا محاولة آخر أنا محاولة آخر تصير إشكالية وينو أجعلها معرفة إن الكورة هذا وأيضا حاجة يبغى تاسو نوفر إلى الخلية تاسو كتاب بس سلف كي أمبارح يجيبوا ما يبصري أمبارح كتب تي لقرأوا بما بدنا ناخذه لكن هذا آخرين كتب في عقد تأسيسي أو قفت فانسين ساعات من سوق السعود كتب حاجة تقف كاستعمالات هاي الأخير وأدون كي أدخل عن مسؤول سوريا كي أدخل عن مسؤول على كرسي كهرباء measurement أدخل في الكنترول وحيانا عام بكسر مرة هذه أنا قفت كتب تأسيسي آخرين ووحى شيكوي كان يوحى وكذا مرة لما نفكر القرآن بدل ما بجلتو تي إنك ويدي ديناميك الأخصائي كتب تلوي خد conspiracy theory وصوالي هذه يقولوا طبعا لكن حافظة أنا بحب بدل بكاهي إن ما دام أن صوت صراو إنك وبربر تيجري صوت كاسنا أنا أقرأ تعبين ولكن كلا تعبين وراءه إسكا روما يمشي ويكبر حياة قح إيو كرتك إيو بركة بدنا نبتدي وكانت الرفاع السياسية دي أمين ما فيها يعني صوتين أي ماشي كبرها إلا حتى الكروبية على هيا يكسرها أي فرقنين ليبيا كلايو رجيم كي كتير إسلام ليبيا سكسيات الروما ضد كتير همجة وحكى كذا كانت تطي ليبيا كمان تيجي سؤال وتبتدئها يعني حتى كانت سياسات كبرنا تجمسين سكول وهي ليبيا هو ضد العقل لكن هو ضد همجة ريبيو بالعقل يوي وايو أفضل كان سلامي كان سيستي أموات وحده كمجيسن mentality يعني يوم ما كقف ليبيا كعمر بسين وأنا tilmaamaha ay ka bixiisay dictatorship-kooda waa dad dusiyada Soomaaliya iyo kaga tagay dad secondary ka baxay jaamacadaha waday waxa ay sheeshaan ka baxay laakiin aan garaadkooda iyo maankooda kobacsaneyn meel kastoo regime dictator hadda ku aragtana dadkaasi dad xogta ka xiran weeye waa dad xoolo bayiya qaban masiirada xoolaha ayuu bayiya qaban intaas aad ma sii waxaan inta soo